madaxa bannaan waxaan uga mahadnaqaynaa sugitaanka kulanka intii uu dhammaanayay iyo diyaar ahaanshaha badan ay muujiyeen anigoo ku hadlaya afkii guddiga waxaa maanta kulan aan la lahayn maarayaha guud ee dekedaha Somaliland Mr. Saciid ujeedada kulankana waxay ahayd in xog waraysi shaqada uu waxa weeye maamul ahaan hayo iyo waxa weeye gudashada waajibaadka iyo mas'uuliyadda uu qaranka waxa weeye uga wakiilka yahay maarayu wuxuu nooga waramayo in shaqada iyo say u socoto iyo dekeda iyo waxa weeye haddii alla ka dhigo muddooyinka u dambeeyay hawlihii ka socday waan uga mahad celinaynaa mas'uuliyadda iyo odaynimada iyo waxa weeye ka soo qaybgalka kulanka oo waxa weeye waqtigii waxa weeye guddigu la ballantay guddiga oo dee guddiyadu marka ay u yeerayaan mas'uuliyiinta qaranka waxay ka wakiil yihiin waa golihii yar weeye marka ixtiraamka sharci iyo waxa weeye qadarinta maarayuhu ka soo xaadirey si kulan furan oo qurux badan waxa weeye xogta shaqada uu qaranka u hayuuna siiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xog fiican buu nala wadaagay idan ilaahay hadduu alla ka dhigo wixii mudanayaashu ay qabeen su'aalo qabeen ee doodiisa ka dhalatay iyo wixii kale ay aragtiyay su'aalo ay qabeen xildhibaanadu way weydiiyeen si wanaagsan oo qurux badan baa kulanka noogu qabsoomay insha allahu wixii hadduu alla ka dhigo kulanka iyo wixii su'aalo faa'iido u lahaa ee aan bulshada aan wakiilka u nahay dareenkooda ku jiray aan weydiinay idan ilaahay waanu la wadaagi doonaa aad iyo aad baan maarayaha golahana ugu soo dhaweynaynaa uguna soo dhaweynaynaa insha allahu guddigana ugu soo dhaweynaynaa golaha inta dee fasaxa ku jiro waxaa hadduu alla ka dhigo guddiga joogtada waa shaqaysa marka anagu wuxuu kulanka iyagana intii fasaxayna kulankii noogu dambeeyey aan maanta qaadano ayuu noqonayaa idan ilaahay waayo kulamadii hore nooga habsaamay ayuu ahaa maarayaha horaan waxa weeye aan kulan nooga baaqday marka anana hadduu alla ka dhigo wixii ka dambeeyo baanu fasax iyagii geli doonaa khayr iyo wanaag baan u rajeynayaa waxaan u mahad celinayaa xubnaha xildhibaanada ah ee guddida joogtada ka mid ah ee guddida dabagalka hantida qaranka oo runtii kulan horena naga habsaamay alxamdulilah rabbil caalamiin si fiican bay noogu dhacday mudanayaashu xogtii ay u baahnaayeen iyo xog waraysigiiba sidii la rabay intii awooddeeda ahayd runtii waan ka jawaabay si fiican oo karaamo leh ayay soo dhaweeyeen si sharaf leh oo karaamo lehna su'aalaha way weydiinayeen aniguna sidaas la eg baan uga jawaabay waxaan mar labaad ugu celinayaa sida qiimaha leh ay soo dhaweeyeen aad iyo aad ayaad mahadsantiin xogtii intii badneedna waxa bixiyay gudoomiyaha guddida Mustafa xildhibaan Mustafa aad baad mahadsantiin maarayo waxa jirta waxa sheegtay in 2 milyan iyo 700 kun sanad ka dhawtay marka laga yimaado مسؤولية إن سوق حولها سومالنا سوق كلا رتان وصلت بعدنا كذا تدير جلسان حولها runtii xoolaha Sacuudiga oo kaliya looma diro laakiin meelo badan baa loo diraa waxaana ku xidhantahay baahiyaha ka jira suuqyada caalamka mar walba jamhuuriyadda Somaliland iyo dawladduba waxay ku hawleeyeen sidii suuq loogu heli lahaa fara badan xoolaha maadaama ay tahay xooluhu laf dhabartii aynu lahayn horena waan ku celiyeen xoolaha la kobciyo la koriyo la naaxiyo laga shaqeeyo dibmiigi loogu noqdo waa mid muhiim haddii xoolihii suuq uu helo xoolo si aynaan hayn waa mashaakil kale shaqay u baahan in xoolina ka shaqeynaa loo baahan